السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان دي سلام يا داود يا شيدا. حنا دي كلا سو هادلينا channel كيني aqoon reeb channel waa aniga ah Dr. Cabdicasiis Khadar Aadan. maanta waxaynu ka hadlaynaa dhiigkarka ku dhaca hooyooyinka uurka leh. dhiigkarka ku dhaca hooyooyinka uurka leh markaynu ka hadlayno waa mid ka mid ah xanuunada ay dumarkeenu dheelsadaan ama ragguba reeraha lihi ay dheelsadaan. waxaad arkaysaa hooyooyin dhiigkar leh oo yacni ninkooda ama iyaduba aanay daryeel fiican aanay helahayn, kadibna ay ku dhacayso dhibaatooyinkii uu lahaa dhiigkarku oo aad u fara badan oo xagga dambe ku xusi doono, oo ugu dambeyn keeni karaba inay hooyooyinku inooga umul raacaan oo ay inooga dhintaan. waana mid ka mid ah waxyaabaha aynu u baahannahay inaynu ka baraarugsanaano, wax badanna aynu ka baranno. haddaba dhiigkarka uurka markayn leenahay, caadi ahaan hooyooyinka waxa dhacda dhiigooda ama blood caadi ahaan dhiigkarka uurka hooyooyinku kor uma kaco blood pressure-kooda ama cadaadiska dhiigoodu, laakiin waxa dhacda wuxuu hoos ayuu u soo dhacaa ilaa iyo intay 24 wiig ilaa 26 wiig gaadhayso. kadib markuu halkiisii ugu hooseysay gaadho, waxa uu dib u bilaabaa inuu dhiigii uu bilaabo inuu kor u soo kaco ilaa inta uu soo gaadhayo normalkii caadiga ahaa, mana dhaafo normalka haddii aanay hooyadu dhiig kar yeelanahayn. haddaba haddii aad aragto hooyo dhiiggeedu uu kacsan yahay oo intii caadiga ahayd uu ka kacsan yahay amaba uu dhaafsan yahay 140 iyo 80 hoose, ama systoliga ama kasara uu marayo 140, xagga hoosena ay marayso in ka badan 90 ama ay ka badan tahay 90, waxay sheegaysaa hooyadaasi inuu dhiig kar leedahay. haddaba dhiigkarka ku dhaca uurku ma kala soocna haddii kasara uu kacsan yahay iyo haddii ka hoose uu kacsan yahay, labaduba khatartooda ayay wataan. that means waxa weeye dhiiggii hooyadu uu kacsan yahay. marka waxaa la odhanayaa dhiigkarka uurka hooyadu waxay leedahay haddii cadaadiska dhiiggeedu uu ka badan yahay 140 iyo 90. soo hooyada uurka leh waxaa looga baahan yahay marka ay soo gaadho 20 wiig iyo wixii ka dambeeya inay mar kastaba la socoto xaalkeeda. hooyooyinka waxaa loogu talagalay inay ku xidhnaato xanaano si loola socdo xaalkeeda uureed ama inta ay uurka leedahay. uurku dhibaatadiisa goonida buu wataa. hooyo waliba yacni ilmo waliba wuxuu leeyahay axwaashiisa goonida. dhiigkar baa kugu dhufan kara, dhiigbax baa kugu dhici kara, dhiig yaraan baa kugu dhici karta, yacni waxii complication ama dhibaatooyin uu lahaa uurka oo dhan ayaa ilmo waliba u wadan kara. so waxaa hooyooyinka muhiima inay la socdaan kan oo ah mid ka mid a khataraha ugu badan ee hooyooyinku ay nooga dhintaan, inaynu la soconno xaalkeeda. waayahay, aynu ka soconno. haddaba waxaa jira noocyo fara badan oo dhiigkarka uurka loo qaybiyo oo loogu kala qaybinayo siday u kala khatar badan yihiin, oo loo yacni laga soo bilaabayo ka ugu khatarta yar leh looguna dambaysiinayo ka ugu khatarta badan leh. soo maxaa dhacda dhiigkarkan uurka qaarkood waxaa la yidhaahdaa gestational hypertension. gestational hypertensionku waa dhiigkar ku dhaca uurka. waxa uu ku dhacaa 20 wiig hooyada ka bacdi markii ay uur lahayd. badanaa waxaa la arkaa hooyada oo blood pressure-keeda ama cadaadiska dhiiggeeda uu kacsan yahay, laakiin wax kaloo calaamada aan lahayn. yacni madax xanuun ma laha, indhaha arageedu waa caadi wax hor yacyaace ma jiraan hayn, sidoo kalena laab xanuun ma laha ama calaamadii khatarta ahaa ee dhiigkarka uurka uu lahaan jiray midnaba ma laha. sidoo kale kaadi haddaad ka qaaddo ama aad shay baadho wax dhibaatood ku arkayso beerkeeda, keliyaheeda ma jirto, ama borotiin lagu arkayo kaadadu midnaba ma jirto. waay waa nooca ugu khatarta yar. hooyooyinka waxay ku xidhan tahay dhalmadoodu ama in hore looga dhaliyaa, waxay ku xidhan tahay xaaladda ay hooyadu ku jirta mar walba markuu dhiigkarka uurka uu yimaado. soo kan waa ka ugu khatarta yar leh. waxaa la sugi karaa waqti baa la siin karaa hooyada. waqtigaa la siin karaana waxa ay ku xidhnaanaysaa sidkeeda inta uu yahay, oo 7 bilood marka uu gaadho waxaa muhiima inay hooyadu hore u dhasho. waynu sheegi doonaa dhibaatooyin ka dhasha dhiigkarka xagga dambe aynu ugu tegi doonaa insha allah. aan ka socdo midka labaad waxaa la yidhaahdaa preeclampsia. preeclampsia waa mid ka mid a dhiigkarka uurka oo isaguna ka khatar badan kii koowaad aynu ka soo hadalnay ee ahaa gestational hypertension. soo kan labaad ee la yidhaahdo preeclampsia waa mid ka mid a dhiigkarka waxyaabaha dhiigkarka ama noocyada dhiigkarka. soo waxa uu keenaa isagu
in dhiiggii gabadha uu kaco weliba in intii hore ka badan uu kaco cadaadiska dhiiggu sidoo kale ayaad gabadhii ku aragto hooyooyinkii ku aragto kaadi iyo shaybaar haddaad ka qaado iyada oo aad aragto borotiin la socota kaadideeda oo markaad shaybaar ka qaado kaadi aad aragto borotiin la socda kaadideeda aad minis sheegaysa in keliyaheedii dhaawacuu gaadhsiisan yahay sidoo kale waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc preeclampsiada waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc waxa iyadu sidii kii hore oo kale ay timaadaa 20 wiig ka bacdi xilligii ay hooyada uur ka qaaday marka laga soo bilaabo haddaba waxa dhacda waxa loo kala qaybiyaa laba nooc waxa la yiraahdaa mid khatar badan oo la yiraahdo preeclampsia calaamado khatar ah ay la socdaan iyo preeclampsia calaamado khatar ah aan la soconin labadooduna way kala dhow yihiin that means waxa weeye khatarnimada way ku kala dhow yihiin oo sida aan soo sheegnay waxaynu kala qaybinay sida uu si kala khatar badan yihiin ka koobaad ee calaamadaha khatarta ah aan la soconin malaha calaamadaha khatarta ah in sheegana waa maxay waa hooyadii iyo dhiigeedu kacsan yahay aad u kacsan yahay sidoo kalena lagu arko maxay in lagu arko madax xanuun sidoo kalena lagu arko maxay iyadoo labxadu xanuunayso sidoo kalena arko inay arageedii aad khalkhal ku yimaado oo wax hor ayaana keenaysa dhiigan aad u kacsan leh calaamadahaasi waxay kala qaybinayaan oo preeclampsiadii ay u kala qaybinayaan laba nooc mid ay calaamadaha khatarta ah la socdaan iyo mid calaamadaha khatarta ah aanay la soconin soo iyadana waxay ku xidhan tahay hooyada marxaladda ay marayso ama xilliga uurkeeda uu marayo in la sugi karo iyo inaan la sugi karin iyo blood pressure-ka ama cadaadiska dhiigga inta uu marayo iyo xaalka hooyada laftarkeeda ka ugu khatarta badan leh ama nooca afaraad inuu ka hadli doonaa waxa la yiraahdaa eclampsia waa hooyadii iyo dhiigeedu kacsan yahay calaamadahan iyo waxaan oo dhan soo yeelatay kaadideedii lagu arkay borotiin imika yeelatay maxay gariir way suuxsan tahay gariir carabkay cunaysaa indhihii bay xaga sare ka rogtay kaadidii iyo saxradii bay isku sii deynaysaa hadhow toolana dhibaatadu way ka sii badataa hooyooyinka badana waxa dhacda in ilmuhu ka dhiman karo inay iyada laftarkeeda u dhiman karto umul raaca ugu badan waa waxyaabaha aynaan ogeyn ee inoo keeni kara inay hooyaduna inaga dhimato ilmuhuna uu inaga dhinto waxaan u soo joogay intaasoo case oo u dhintay preeclampsia ama eclampsia u dhintay oo iyaga laftarkooda managementkii intii loo waday darteed markii ilmihii la badbaadiyey hooyooyinka ay u umul raaceen dhibaato ka timid darteed maxay dhiigkarkii hore ama gariirkii hore ay samaysay oo maskaxda dhiig kaga furmay deedna u dhintay markii dambe soo waxa muhiim ah inay hooyadu markasta intaan marxaladda la gaadhin ka hortag fara badan ay samayso oo ay marka hore xaalkeeda ay hore ula sii socoto waa ka ugu khatarta badanne ee uguna dhibaatada badanne hooyooyinkuna ay nooga dhiman karaan eclampsiada nooca kale waxaa la yidhahdaa HELLP syndrome waa mid ka mid a noocyada dhiigkarka markaa isaguna wuxuu keenaa inuu beerkii dhaawac gaadhsiiyo oo hemolysis ay yimaado oo unugadii dhiigga cadxasaa la burburiyo beerkii insaamyadu soo daynaya kacaan oo dhaawac uu soo gaadho beerka xinjirowga dhiiguna uu yaraado hooyadu markaa ay yeelto sankii afkiiba ay ka dhiigto maadaama xinjirowga dhiigga uu yaraaday sidoo kalena maxaan dhahdaa beerkeediina dhaawac fara badan uu soo gaadho hooyooyinka kaa yeeshaana aad bay u khatar badan yihiin daweyntiisuna way ka duwan tahay kuwa kale waxa ugu muhiimsan in horta termination loo sameeyo ilmaha hooyada laga soo saaro iyada iyo eclampsiadaba oo ilaa madheerta iyo ilmaha la soo saaro hooyooyinka ma dawoobaan waxa ugu fiican ama dawada ugu fiican xagga dambeyn ku sheegi doonaa ee dhiigkarka lagu daweeyaa waa iyadoo ilmahaasi uu hooyada ka soo baxo oo laga soo saaro waxaa jira nooc kale oo ugu dambeeya oo la yidhaahdo chronic hypertension supraumbilical preeclampsia waa dhiigkar ay hooyadu hore u lahayd hooyooyinka qaarkood baan mid uurba lahayn oo hore dhiigkar hore u lahaa dhiigkarka ay hore u lahaayeenna waxa uu keenayaa maxay inay hadhow toole yeelato preeclampsia waayo hooyadii aan intaanay uurka lahaynba dhiigkarka lahayd dee marka dambena wuxuu isu bedelayaa maxay preeclampsia ama dhiigkarka uurka oo chronic state noqonaya oo la sii joogayo hooyooyinkaas waxa ku xiga haddaba maxaa risk factor ah maxaa keeni kara hooyooyinka inay uur yeeshaan maxaa khatar ay ugu jiraan waxa la yidhaahdaa hooyooyinka ilmaha koowaad qaaday iyo hooyooyinka ilmihii caruuro badan qaaday waxay aad khatar badan ugu jira ta ilmihii koowaad sida ayaa waxay khatar badan ku jirtaa inay yeelato dhiigkarka uurka ay yeelato sidoo kale haddii hooyooyinka uur badan ay qaado caruur badan mataano 3 waxyaabahaasi ay makaankeeda soo galaan iyaguna waa mid ka mid a waxyaabaha keeni kara
sidoo kale hyride formol oo mid ka mid a waxyaabaha ku dhaca makaanka gudihiisa oo xilliyada qaarkood kansar noqda ayaa isna ka mid a waxyaabaha keena dhiigkarka uurka xataa waxa uu keenaa in 20 wiig ka hor ay hooyaduba dhiigkar sii yeelato ka hor sidoo kale macaanka isna waxyaabaha kale khatarta badan haddii hooyadu macaan lahayd inay yeelan karto dhiigkar waxa iyaduna aan la bedeli karahayn oo aan laga sii fikiri karahayn age extremiska labada dhinac ee da'da haddii hooyo aad u yar ay aad u yar tahay like 15 14 imika way dhacdaa inay uur ku qaadaan waxay khatar u tahay hooyada da'deeda halkaa maraysa inay dhiigkar yeelan karto sidoo kale waxa khatar u geli karta hooyooyinka da'da waaweyn leh ee 35 ilmihii koowaad ku qaaday iyo wax ka weyn 35 37 40 yani waa hooyooyin xilliga ilmihii koowaad ku qaaday waxay khatar badan ugu jiraan inay dhiigkarka uurka yeeshaan haday hooyo waxa kale oo kamid ah waxyaabaha risk factorska haday hooyadu hore u lahayd dhiigkar iyo haddii hooyadu kaliyaha ay bukaan hore ka qabtay iyaduna waxyaabaha kale keeni kara dhiigkarka uurka inay hooyadu yeelato haddaba ka ugu muhiimsan waxaa maxay aynu ka hadli doonaa maxaa ka dhasha haddii dhiigkarka uurka u yimaado maxaa ka mid a dhibaatooyinka ka dhalan kara kow waxa ugu horeynaya hooyadu waxay yeelanaysaa gariir ama suuxdin sida aynu soo sheegnay carabkay cunaysaa indhahay gediyiisa kaadidii isku sii daynaysaa iyo saxaradiiba sidoo kalena marka dambe waxa dhici karta markii dhibaatadaasi timaado in maskaxda dhiig kaga furmo oo intracerebral hemorrhage wax la yiraahdo ay yimaadaan kadib waxa ugu dambeeya in hooyadiina kaa dhimato ilmihiina uu kaa dhinto oo aad labadiiba meesha ku weydo marka waxa muhiim ah inaynu ka hortagno ka hortag fara badan ay sameeyno ka hortag fara badan haddaba saynu uga hortageynaa waxa ugu muhiimsan hooyooyinka inay sameeyaan good antenatal care wax la yiraahdo antenatal care waa maxay hooyooyinka waxa loo sameeyaa 12 jeer ama in ka badan ayaa waxa loo sameeyaa in hooyooyinka xaalkooda la eego oo ay xanaanooyinka ku xinaadaan waliba dhakhtar ahaan waxaan soo jeedin lahaa recommendation ahaan wasaaradayda aan jecelahay ee Soomaaliland aan ugu dari lahaa waxa weeye in xanaanooyinka ama MCHs-ka badanaa la geeyo dhakhaatiir si hooyooyinka xaalkooda ay ula socdaan waayo waxaan u soo joogay in hooyooyin badan ay ku dayacan yihiin dhakhtar la'aan xanaanooyinka dartood waxa kugu imanaya habeenadaad shaqaynayso ama isbitaalada aad ku jirto hooyooyin uur leh oo dhiigkar lahaa maalin walba laga cabiray loonay caadi baa tahay iyagoo deedna hadhow toole gariiraya carabka cunaya waxaa jira isbitaalka weyn ee Hargeysa in dad badan ay ku dhaawacan yihiin oo dhiigkarka uurku oo dhibaato badan u geystay marka waxaan daruuriya oo hortag fara badan lagu sameyn karaa in hooyooyinka markasta lagu wacyigeliyo inay xanaanooyinka aad ula socdaan ugu xidhnaadaan ama dhakhaatiirta laftarkooda ay ku xidhnaadaan oo qofkii uu samaysto hal dhakhtar oo OBG gaynaya deedna ama hooyo iyo dhalaanka dhakhtar ku takhasusay ay samaystaan deedna la socda xaalka hooyada ilaa inta ay ka dhalayso la socda marka antenatal care waa muhiim computer la saaro hooyada ilmaheeda la eego wuxuu keenayo kale in caruurta qaarkood ay noqdaan inay yaraadaan ama UGR wax la yiraahdo intrauterine growth retardation ilmihii yaraa ee uurka galay inaanu si fiican aanu u korin soo waxay u baahan tahay in hooyada computer lagu la socdo sidoo kale dhiigeediina la dajiyo haday dawooyinkii dhiigkarka u baahan tahay la siiyo haday khatar gashana dee la badbaadin karo hooyadii ayay u baahnaanaysaa oo dhakhtar fiican uu la socon karo sidoo kale waa inay hooyadu haday calaamadahan khatar tahay isku aragto oo hore loogu sheegay dhiigkar tusaale ahaan madax xanuun fara badan bay yeelatay horena dhiigkar hore loogu sheegay ama indhihiibay araggiiba horyaacayaan amaba waxa yeelatay labxada oo xanuunaysa hooyada waa inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay tagtaa isbitaalka ugu dhow hooyadaasi waayo waxay ku jirtaa khatar ah inay yeelan karto oo ay ku socotaa inay yeelato maxaa dhahday eclampsia ama ay suuxdin yeelato hooyadaasi waxaan ugu dambaysiinaya qodobkayga ugu dambaysa waa in hooyada la talo fiican la siiyaa markasta laguna adkeeyaa maxay follow up fara badanna dhakhtarku uu sameeyaa oo uu la socdaa hooyadaas iyo xaalkeeda markastaba intaas ayaynu kusoo koobi doonaa aad baan idiin salaamaya dhammaantiin waxaan filayaa inay wax idinka anfacday inaad ka fahantaan dadkeena caamada amaba inta wax akhrida ama inta aan waxba akhriyinba inay ka faa'iideysan doonaan videogeygan oo aan kaga sheekaynayay
khataraha faraha badan leh ee uu leeyahay dhiigkarka uurku insha Allah aad baad ula socon doontaan waana ka faa'iideysan doontaan videoga aad baan idin salaamayaa dhammaantiin asxaabtayda ku xidhnaada channelkayga aqoon reeb channel aadna ula socda aad baan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.